الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم غيرها فقد حرم. walaalayaal ugu horeynta ilaahay ayaa mahad iska leh, ilaahaas oona gaarsiiyey waxaan ugu soo foolleh sidaa wada ogtihiin bishii barakeysneed. ilaahayna gaarsiiyey, insha allah inta noo dhimana ilaahayna noo dhamaystiro. walaalayaal, bishaan waxay ka mid tahay bilaha ilaahay u qaas yeelay waxyaalo badan cibaadaadka. sidoo kale bishaan waxay ka mid tahay bilaha aan la soo koobi karin ajarka laga helo. walaalayaal, bishaan waxay u baahan tahay waxaa ku dhex jira dhexdeeda faa'iidooyin tiro badan. waa bishii qur-aanka la soo dejiyay oo ilaahay wuxuu yiray: shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan. xaqiiqatan bishaan waa bil ilaahay ku tilmaamay awaalmarinteeda inuu asiga keliya og yahay, aanan qofnaba kale la ogeyn. wax kastoo camal aad samaysid miisaan bay leeyihiin oo ajar baa lagaa siinaa. ajarkaasna waa la labalaabaa ilaa labalaab tiro badan la gaarsiiya. laakiin ramadaanka ilaah oo keliya og. ilaah asigaa isku tiiriyey sababtoo ah waxawaay qofka ma la ogaan karo inuu sooman yahay ilaa ilaah oo keliyana og. sababtoo ah waa camal siri ah. qofkan inuu sooman yahay in kale waxaad ogaan kara oo keliya ilaahay. sababtoo wax kastoo samayn kara qofka, laakiin ogaashaha ilaahay ayaa iskale. sidaas darteed anaga maxaa laga baahan yahay inaan ka faa'iidaysano waqtigaan haysano, inaan ugu faa'iidaysano wax kastoo camal oo khayr ah. ugu horeysa salaada, sadaqada, afurka. sidoo kale bishaan waxaa ku jirto sida xadiiskan soo akhrinay ka mid ahaa laylatul qadr. laylatul qadrigaasna waxaa ogtiin 1000 bilood oo ka khayr badan yahay. marka waxaad dareemaysaa inay meeshaan ay tahay bishii nimcada, bishii naxariista, bishii toobakeenka, bishii cibaadada, bishii quraan akhriska. bishaan waa bishii laga faa'iidaysanayo. waa inaa ugu faa'iidaysataa wax kasto oo is leedahay waad ugu faa'iidaysan kartaa. waa inaad ugu faa'iidaysataa wax kasto ku anfacaya. sababtoo ah bishaan ghanaa'imkeeda ma dhabo, fursadaheeda ma dhabo. ilaahay wuxuu tilmaamay asiga oo keliya inuu og qofka waxa lagu awaalmarin doono. sidaa darteed bishaan waa inaad qur'aan akhrintaada badisaa. sidaas darteed waa inaad salaada badisaa, taraawiixda, salaatuleylka, sunooyinka, waajibaadka oo keliya ku ekaan jirta. haddaa hore u ahaa jirta qof waajibaadka oo keliya dugdo, maanta wixii ka dambeeya ramadaan hadduu bilowday waxaa lagaa rabaa inaad sunooyinka baratid, inaad qur'aan akhrintooda badisid, sidoo kale sadaqada inaad badisid. sidaasoo kalena afurka keliya ma aha inaad wax tiro badan aad bixisid. 3 xabo timir iyo biyo haddaa qofka siisid waa afurise. sidaasoo kale nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam fadliga in la isla afuriyo, qof la afuriyo fadligiisa markuu nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam tilmaamay muxuu dhahay: qofka qof afuriya wuxuu leeyahay ajirka qof soomanaa oo kale. qofkii soomanaane ajirkiisa ma ka nusqaamay. meesha waxaad dareemaysaa fadli tiro badan inuu ku jiro. markaa laga faa'iidaysto oo dadka qof kasta wuxuu heli karo. haddaad waxaad heli kartid samay. salaada taraawiixda dadka badanaa waa iska yareystaan. waxaad arkaysaa 10 hore masjidka soo u buuxo, waqtiga dambe masjidka abro sii naqanaa 10 dhexoo dhan. marka dambena 10 dambena haddana waa lasoo buuxiyaa. ogaaw cibaadada tan ugu fiican waa tan tikraarka badan lagu sameeyo, tan wax lagu celceliyo. bishaan waa bishii nafta la idbi lahaa. bishaan waa sanadkii oo dhan bishii qaladaadkii la galay lagu sixi lahaa.
haddaad ahaan jirtay qof salaadaha ka gaabiya, haddaad ahaan jirtay qof quraan akhriska ka gaabiya, haddaad ahaan jirtay qof qaraabada xiriirinteeda ka gaabiya, wax kastoo cibaado ah oo aad ka gaabin jirtay ama sunnooyin ah aad ka gaabin jirtay dhammaantooda waa inaad bisha aad ku baran lahayd. bishaan waa bil tababar, waxaad ku baranaysaa qaabka wax cibaadadaadoo dhan, waxaad ku kontarooleysaa xumaantii iyo dhibkii iyo dhibaatada jirtay ayaad ka fogaanaysaa. qof kastoo xumaan samayn jira maanta bishaan bishii xumaanta ma aha. dadka qaar waxa waaye bilahan oo kale waxay u bartamaan inay sameeyaan wax la yiraahdo aflaanta ama dhaadhuuga, waxaasoo dhan xaqiiqatan wax ma ku tarayaan. walaalkay waa inaad ogaataa waqti inaad leedahay. ilaahay wuxuu yiri kullu nafsin daa'iqatul mawt, waad dhimanaysaa, naf kastoo way dhimanaysaa. ogow marka adiga goormaad dhimanaysaa ma taqaan, ma saacad kadiba, ma ilbiriqsi kadiba, ma codkana dhageysan doonta, mis marka kadiba dhiman doonta. qofna ma yaqaana maalintuu dhimanayo. sidaa darteeda qof kasta waxaa waajib ku ah in oo sameeyo wax la yiraahdo dadaal badan. ramadaankii hore dad baa nina joogay, dad badanaa safka horena la dukanay, maanta ma joogaan, intee akhirey jiraan, gurigooda dhabkay aadeen. marka adiga goormaa bixi doonta? ramadaankan kii kugu dambeeyay miya mis kuwa kala ku haray, ama ma dhameysan doontid oo dhaxa ugu tagi doonta, ama ma habeenkii la soo markii habeenka koowaad dhima doonta? qofna ma yaqaan. haddii sidaa tahay waxaad ka tahay qof aanan ogeyn oo waqtiga dhimanaysaadaan ogeyn, ogow marka xilli kasta geeridu way ku imaan kartaa. waa inaad dadaashaa, waa in juhdi badan bixisaa, waa in salaatu leylka lagu dadaalaa, waa in quraan akhriska tirada badan lagu dadaalaa. sidaas oo kale waa in salaatu leylka gaar ahaan habeenku ilaahay tilmaamay laylatul qadriga xaqiiqatan fadligiisa wax la soo koobi kara maaha. laakiin hal mid iga dhageyso, hal ka mid iga dhageysanaysa waxay tahay dadka badana waxay raadiyaan habeenkaas oo kaliya. ogow cibaadada aslan haddaad midba mid in kugu gudbi weyse, ogow ma laga yaabo macnaha salaad subax haddana salaad cisha dukan, salaad wax saa ku dukato way adkaanaysaa. bal ka waran marka salaatu laylatul qadriga waxaa haleela ee u badan tahay inuu haleela qofka ilaahay haleeshiya. laakiin dadaal la iska rabaa. waa in habeenka koowaad ramadaan aad go'aan ku gaartaa inaad dadaalaysid ilaa ilaahay inta la kulmaysid. xaqiiqatan kadibna ilaahay wuu ku fududeynaya, kadibna waad halaysaa. meesha waxaad dareemaysaa in dadaal badan iyo juhdi badan loo baahan yahay. isku day marka inaad ahaatid qof u diyaarsan inuu gaaro ajar kastoo ilaahay sheega. ogow adduunka wax dhamaanaya waay, xaqiiqtaas way tacadahay. sababtoo ah waalidiinteena aawe, waalidiinta dhashay aawe, macallimiinteena macallimintooda aawe. xaqiiq waxa ay qof kasta inuu dhimanayo, taashe shaki kuma jiro. waa marka hadayna shaki ku jirin waqti aad dhimanaysana ma taqaanin, maxaa lagaaga baahan yahay waqti kasta inaad diyaar garoodid, diyaar inaad u ahaatid geyri, oo aad u qaadatid xilliga la taagan yahay in lagu dhahayo haye hebel oo soo bax, xilligaaga waa la gaaray. marka diyaar ha loo ahaado. geerida ka hor waxa la diyaarsado, war guri inta la degin ka hor la sameeyaa sooma. sidaas oo kala waay. marka hala dadaalo, juhdi badan hala bixiyo, quraan akhrinta hala bixiyo. quraanka in la akhriyo fadli tiro badan uu leeyahay, ma ugu jirta ramadaan markay sii tahay. halkii xaraf xadiiskii caanka ah alif laam miim nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu alif laam miim xarfun kalama jeedo alif laam miim, laakiin alif wa xarfun walaam mid kasta in gooni lagu tanaa. kabaran maalinta haddii aad dhamaysid quraanka maalinta oo dhan ba hal mar haddaad dhamaysid juz akhri, laba juz inta awoodaada ah. intaad wax ku ciyaari lahayd ama lahawi ama waxaan loo baahnay, ama xaqiiqatan ramadaanka hala ilaaliyo. hadalkaaga ilaali, qowlkaaga ilaali, socodkaaga ilaali, adigoo dhan is ilaali. sababta waxaa ku jirta bishii wax kasta aad ku baran lahayd. walaalkiin maxamed cali waxaa idin leeyahay dadaal badan juhdi badan hala bixiyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.